Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharkeena box model. Casharkan waa casharka ugu muhiimsan inta aan soo qaadanay. Casharkan waa casharkii noo furi lahay albaabada CSS-ka ama meesha aan ka bilaabi lahayn dhismaheena quruxda badan. Marka casharkan aad iyo aad u fudud yahay. Marka box model maxaa la yidhahdaa? Marka hore waxaan sharxi doonaa sawirkan waaye. Box model waxaa la dhahaa HTML every HTML element ama element kasta oo HTML ah wuxuu leeyahay box ama waxaa loo soo bandhigaa qaab box ah. Maxaa la dhahaa horta HTML element maxaa la dhahaa? Waxaas la fiirinaynaa HTML element waxaa soo sheegnay HTML tag. Hadda casharka ugu dambeeyay waxaa soo qaadanay wax la yiraahdo paragraph. HTML tag waxaa la yiraahdaa midkaan meeshan ka furmaayo, midkaanna meeshan ka xirmaayo. Kan waa tag, kanna waa tag. Kan waa taaga meesha uu ka furmaayo, kanna waa taaga meesha uu ka xirmaayo. Marka maxaa la dhahaa HTML element? HTML element waxaa la dhahaa labadooda oo la isku qabtay, meesha uu ka furmaayo ilaa iyo meesha uu ka xirmaayo inta u dhaxayso waxaa la yiraahdaa HTML element. Hadda paragraph-kan si aan u aragno marka box model wax la yiraahdo oo aan kusoo bandhigi doono browserkeena. Marka hore waxaan ku qornaynaa qoraal paragraph-keena. Waxaa dhahay this is box model. Save dhahnay browserka ku kacsanay sida caadada oo ay live serverkeena. Marka hadda qoraalkeena waa kana box model. waxaan samaysanaynaa CSS oo CSS hore leenahay oo noo diyaarsanay oo style CSS ahay. Hadda daarabno mid cusub aad samaysanaynaa si aan iskula aragno. Iska delete gareynay. mid cusub aan samaysano midkaan waxaa iskaga baxsanay CSS u baxsanay CSS extensionka ahay. Marka sida u soo qaadanaba sidan waa external waaye inaan CSS keena file gooni u samaysano. Marka waa isku soo xiraynaa. aan soo baranay qaabka la isku soo xiro oo waxaan niri markii lagu soo xiraayo external CSS waxa u baahan wax la yiraahdo linki. sheegayna filekeena meesha uu yaalo waa kana filekeena CSS isaan noo soo qabanaya automatic. hadda marka save gareysano wuu noogu xiran yahay CSS keena. marka soo minimize gareysanayna. qoraalka qoran waa kana paragraph-ka ahay. hadda sidan CSS markii la joogo marka paragraph-ka soo qabsanay oo tagi paragraph-ka ahay soo qabsanay. marka waxaan rabnaa inaan aragno box-ka wax la yiraahdo. marka hore marka hadda sawirka fiirino sawirka waa kana box modeling ah. box modeling wuxuu ka kooban yahay 4 shay oo content-ga, padding-ka, border-ka iyo margin-ka. mid walbana wuxuu yahay waa dul istaagi doonaa insha Allah. marka hadda paragraph-keeni wuu noo qoran yahay HTML gudaheeda paragraph-keeni waa kana. markii CSS-ka la yimaado tagi paragraph-ka waa soo qabsanay si aan u style gareysano ama color ugu bedelno ama background ugu bedelno waa kana. browser-keeni waxaa noogu soo muuqday qoraalka aan ku qornay paragraph-ka. marka waxa u soconaa waxa la yiraahdo box modeling. marka box modeling waxa dhahnay sida sawirka ku aragnay wuxuu leeyahay dhahnay content, wuxuu leeyahay dhahnay padding, wuxuu leeyahay dhahnay border, wuxuu kale leeyahay dhahnay margin. intoodaba waxaan rabnaa inaan soo wada bandhigno aan isla aragno. marka waxaa ka bilaabaynaa borderkiisa. border maxaa la dhahaa? border waxaa la dhahaa waxa ku wareegsan ama xuduudda ama iskale banaanka guud ee elementigaas uu leeyahay. waa soo muujinaynaa by default borderka waa qarsan yahay lama arko. border u samaysanaynaa 1px kan wax lagu cabiro waaye. solid kanna waxa waaye colorkiisa. waxaa ka dhigaynaa red si aan u aragno. markaa save dhahno waxa aragtaa waxa ku wareegsantay xariiqad ku wareegsantay oo guduud ah. 1px kan waxa dhahnay waxay sheegaysaa macnaha cabirka. hadda ka dhigno 3 ka dhigno leenkii uu ka soo butacsamaaday. colorkanna waxa waaye colorka uu qaadan doono borderkeena. borderka waxa dhahnay waa waxa ku wareegsan elementigeena.
by default wuu qarsan yahay. So sida ugu jeedo waa qaab box ah oo dheer oo elementiga marka lineka dhan isagaa qabsanaya. Marka haddii inta lagu qoro linkan isagaa iskale. Hadda halkan line paragraphka hadda this is box model la dhahan oo inta markaan imaanay lineka oo dhan isagaa wada qaadanaya oo isagaa iskale ilaa iyo linekaas intuu ka dhamaanayo. Wixii la raacsiiyana way kusii dul qormayaan. Marka waxaa aragnaa borderka sida sawirka ugu jeedno. Borderka waa kana. So si aan iskugu keenno marka sidaan sawirkan oo kaleeto borderkeena colorkiisa waxaa ka dhiganaynaa cagaar oo green ka dhigana. hadda way noo muuqdaa hadda borderkeena. marka maxaa kaleeto padding waxaa la dhahaa spaceka dhexda boxkan gudihiisa wixii space ah waxaa la yidhahdaa padding. marka paddingku wuxuu lahaan karaa 4 jiho, waa kor, hoos iyo bidix iyo midig. midigteena dhinacan waaya dhahne, hoos waa kana, korna waa kana. paddingkana waxaa dhahnay gudaha spacekiisa waa. hadda paddingka hadda waxaa dhahna 10 dhahna. markaa 10 dhahno oo safe dhahno space gudaha wuu noo balaartay. marka waxaa sameynaynaa hadda sidiis hore aan kusoo celinay padding waxba ma siinin. bxkan iyo lambaradanna waxaa dhahnay waa wax lagu cabiro macnaha. hadda paddingku wuxuu leeyahay 4 jiha dhahnay oo waxaa ka bilaabaynaa hadda padding left waxaan siinay 10 px. qoraalkiina wuxuu kasoo durkay 10 px ayuu kasoo durkay derbigan. hadaa wax yar geeskaa keensan si aan u aragno isbedelkeena. fiiral mar hadda padding laftigeena 0 soomahan. safe hadda hadda dhahno fartu waxay ku dhegan tahay derbiga ku dhegan tahay. padding laftigu waxaa dhahnay waa qaybtan waaye, gudaha dhexdeeda qaybtan waaye. padding right-kana waa qaybtan kale waaye. padding top-na waa qaybta kore waaye. padding bottom-na waa qaybta hoose. 4 jiha leeda. afartaba waa qoranaynaa padding right. so padding top, padding bottom. so marka calaamadan oo lagu soo xiro waxay caddaynaysaa macnaha in lineka uu dhammaaday. marka line walba markaa dhamaysid waxaa kusoo xiraysaa calaamadaas. waa ujeedid hadda green markaa qorno calaamadaasa kusoo xiraysaa. hadda midaan padding laftiga waxaa siinay 10 siinay waa soo xiraysaa. line kasta markaa qortid wax markaa ku qortid waxaa la rabaa baashaas waxay caddaynaysaa inuu lineka dhammaaday oo lineka lagu soo xiraa. haddaada line kusoo xirin ma ku shaqaynaysa macnaha. hadda afartooda 1 by 1 usoo wada qoranaynaa horta. marka hadda 10 keligiis aad qortid oo aad safe tiraadid ma shaqaynayso. waa inaad raacsiisaa pixel wax lagu cabiro. pixel waxyaaba badan wax lagu cabiraa jira waa gaari doona laakiin hadda pixel ku qaadanaynaa ifrisin. bx-kan macnaha waxa waaye cabiraad waaye 10 bx. hadda markaa safe dhahno wuu noo shaqaynayaa. so waxaa dhahnay double commadan waxay caddaynaysaa in lineka lagu soo xiraayo. so hadda padding laftiga waxaa siinay 10. hadda haddaan rabno inaan kor kasoo durgano boxka gudihiisa waxaa isticmaalaynaa padding top 10 siinay. kor wuxuu kasoo durkay wax yaruu kasoo durkay. hadda si aan u aragno waxaa siinaynaa tiro badan 18 bx inuu kor kasoo durko. hadda ujeedaa balacii kore wuxuu kasoo durkay 18 bx. borderka kore meeshiisuu taagnaanayaa. space walba uu gudaha laga sakiyaa waxaa la yidhahdaa padding. so hadda haddaa inta siinay padding topka 80 siinay si aan midka bottomkan u aragno waxaan siinaynaa padding bottom isagana 80 kala siinaynaa. safe dhahna hoosna waxay ka durguday 80 kale ka durguday. marka paddingku wuxuu leeyahay 4 jiha dhahnay oo top iyo bottom iyo left iyo right. hadda haddaan rabno midkan leftiga inaan soo sikino oo intaas kaga soo sikinana waxaan samayn karnaa inaan dhahno padding left isagana 80 aan iska soo durgino. markaa safe dhahno wuxuu kasoo durgay 80 qaybtan oo leftiga. so hadda haddaan rabno inaan sii fogeyno oo aan dhahno
boqol durub ama 190 iska dheh wuu soo yara fogaaday oo intuu kusoo yara fogaaday. So padding hadda waxaa aragnaa marka padding topkan inuu yahay spaceka gudaha qaybtiisa kore. So marka paddingku wuxuu space amise kale waa balaca gudaha uu leeyahay elementigaas. marka element kasta wuxuu u samaysan yahay qaab box, wuxuu leeyahay border ku wareegsan, wuxuu leeyahay padding wax la yiraahdo space dhex looga sameeyo, iyo wuxuu leeyahay wax la yiraahdo margin. So hadda contentiga horta waxa waaye elementiga wax ku dhex qoran, sida hadda qoraalka anaga noogu qoran waxa waaye this is box model, macnaha elementigaas wixii ku dhex jiro. element maxaa waaye? waxa waaye b taagan meesha uu ka bilowdo ilaa meesha uu ka xirmaayo waxa la isku dhahaa element. b-dan kaligeed oo meeshan ka furmayso waxa waaye tag, midaan meeshan ka xirmayso waxa waaye tag, laakiinse bilowga meesha ay ka furmayso ilaa meesha ay ka xirmayso waxa la isku dhahaa element. wixii ku dhex jirona waa content, wixii ku dhex jiro waa content. sawir ku dhex jiri karo, qoraal aad ku dhex jiro. hadda aniga qoraal aan maroonaa, mar content-gayna hadda qoraal waaye. So hadda waa kana this box model, hadda qoraalkii waaye. hadda qoraalka waa kana. qoraalka marka wuxuu leeyahay dhani border uu ku wareegsan, oo element kasta wuxuu leeyahay border uu ku wareegsan. marka borderkaas ku wareegsan, borderka iyo qoraalka waxa u dhaxeeya padding oo space ah. marka margin-ka maxaa waaye? margin marka u nimaano, margin waxa waaye boxkan wixii ka dambeeya spacekeeda. sida padding ay u ahayd boxka gudihiisa spacekiisa, margin waxa waaye elementigaas wixii banaankiisa ka ah. hadda waxaan rabnaa in borderkeena xariiqadiisa meesha ka bilaabanaya inaan soo durgsano oo hoos aan keensano, marka waxaa la yiraahdo margin. So hadda waxaa dhahan margin top. margin-kan waa sida padding oo kale, waxay leedahay top ay leedahay, left ay leedahay, right ay leedahay, bottom way leedahay. marka hadda topka dhahan, topka waxaa dhahan 100 px ha ka soo durgo kor. elementigina isagoo iswato ayuu kor kasoo durga, macnaha waxa waaye outside of that element waxaa la yirahdaa margin. marginku waa meeshan amise kale elementigeena intaanu ku kooban yahay elementigeena. elementigeena waxaa dhahan wuxuu leeyahay border ku dahaaran uu leeyahay, wixii ku dhex jirana waxaa la yirahdaa content. borderka iyo ilaa ka borderkan kale amise kale xariiqadan kore ilaa xariiqadan hoose wixii u dhaxeeya waxaa la yirahdaa padding. wixii banaanka ka ahna waxaa la yirahdaa margin. margin mar walba outside-ka waa gudaha, wax isbedel kuma sameynayso. gudaha dhexdeeda wax isbedel kuma sameynayso. hadda rabo margin right aan dhahna, margin right kana asiina 20 marka hore asef dhana si u aragno isbedel walba dhaxayo. hadda sidan waa by default waa caadiga ahayd waaye. margin right hadda waxaa dhahnay 30 px ka soo durka, dhanka midig ayuu wuxuu kasoo durkay oo jeedaa space aad ka banaan 30 kasoo durkay. So hadda marka hadda tirno waxaadna waa tirno example kale ku sameynayna shaashadaad sideeda waaye. paragraph waa hadda waxa ku sameynayna h1-kii aan soo qaadanay ama header-kii. so h1 aan dhahnay this is box model. oo safe dhahna sida caadada ee h1-ka waxaa loo isticmaalaa ciwaanada oo farta waxay noqonaysaa far waaweyn oo madow ah. marka haddaan rabno inaan markaa si isaska externalka markaan nimaano elementiga aan rabno inaan style garayno ama aan qurxino ama wax ka bedelno, elementiga waxaa soo qaadanaynaa tagga magaciisa. taggan waa maxay? h1. so tagga magaciisa waa soo qaadan h1. waxaa furanay curly brackets-ka oo elementigaas calooshiisa furanay. so waxaa soo qaadanay waxa la yiraahdo color. so colorka muxuu noo qabtaa dhahnay inuu uu ka bedelo farta colorkeeda. so waxaa ka dhiganay red, guduuda ka dhigana farteena waxay noo noqotay guduud. marka waxaan rabnaa inaan ku dabaqno box modelkeena. elementigeena hadda wuxuu leeyahay wax la yiraahdo color iyo background. colorkiisana waa bedeli karnaa dhahnay, oo waxaa lagu bedelaa background kaligiisa dhigi kartaa background color, labadaba same waa. marka waxaa dhahnay background colorkiisa inuu noo ahaado blue. hadda ujeeda backgroundgiisa wuxuu noo noqday blue. hadda borderka ma aragna anaga, borderka by default none waaye, ama border ma lahan markay defaultiga tahay. marka borderkeena waa soo muujisana. so borderka waa soo muujisana 2 px ka dhignaysaa butac uga dhigno, wixii lagu cabirayna px ahayn waa siina
so solidkana waxa waaye farta amase kale kalarka lahaa doono waxay noqon doonto solid ama waxaa maraysaa borderkeena inuu noo ahaada rabnaa dhaan black madow. hadda waxaa ujeedaa buluuga waxaa ku wareegsamay border madow ah, so saas maaha. marka waxaa dhahnay hadda space ma lahan baalkeena dhexdiisa, wax space ma lahan. so hadda waxaa dhahnay baadhinku waxay qabataa dhahnay waxa waaye spaceka gudaha waaye. marka waxaa rabnaa farteena leftiga inay kasoo durugsanaato wax yar, leftiga inay wax yar kasoo durugsanaana dhahnay. marka waxaa dhahnaa baadhinkee waa marka baadhinku waa badan yahay, wuxuu leeyahay top uu leeyahay kor ah, uu bottom uu leeyahay oo hoos ah, lefti uu leeyahay oo dhinaca bidix iyo right oo dhinaca midig ah. marka waxaa dhahnay waxaa rabnaa anaga borderka oo waxaa rabnaa dhahnay leftiga, qaybta leftiga. marka meeqaa kasoo durugsanaanayna 40 bx, waxaa dhahnay kasoo durug 40 bx dhinaca leftiga. so hadda markaa safe dhahnay 40 ayuu kasoo durugay, 40 ayuu kasoo durugay dhinacayna bidix. marka waxaa dhahnay 40 waxaa kasoo durugdaa qaybteena kore. marka maxaa isticmaalaynaa isku day hadda maxaa isticmaalaynaa baadhin top oo kor, baadhinka waxaa dhahnay kor iyo hoos, bidix iyo midiga leedahay. so marka waxaa dhahnay baadhin top asigana maxaa kasoo durugayna 40 kale kasoo durugayna dhahnay oo bx 40 oo kasoo durugay kor. marka waxaa dhahnay hoosna waxaa kasoo sikataa 40 kasoo sikaa dhahnay hoos. marka hoos maxaa isticmaalaynaa baadhin bottom 40 bx. so safe dhan hadda hoosna wuxuu iska sikiyay 40. so hadda marka elementigeena wuxuu lahaaday space fiican oo hadda lahaaday oo caadi ah. marka hadda elementigeena ilaa iyo wuxuu la eg yahay ilaa iyo lineka ayuu la egaado. marka maximize dhahno ilaa iyo lineka ayuu la ekaanayaa. oo waxaan rabnaa marka inuu elementigeena soo qurxonaado oo inta aan soo yarayno oo ilaa inta la ekaado horta. marka waxaa jirto waxa la yiraahdo width iyo height, width iyo height wax la yiraahdaa jirto. so xisaabada soo qaadato waa fahmi kartaa. width waxaa la yiraahdaa ballaca uu shay leeyahay, heightkana waxaa la yiraahdaa dhirirka uu shay leeyahay. marka waxaa sameynaynaa inaan ku darsano ballaca. so ballacayna automatic wuxuu la egyahay 100% waaye oo derbigu wuxuu ka bilaabanayaa inta documentigana meesha uu ka bilaabanayo geeskan ilaa ka geeskaas kale. waxa waaye ballaca waa qaybtan caloosha amise kale jiifka qaybteeda ama sidan waxa waaye ballaca uu wax leeyahay. dhirirkana waxa waaye jooga, ballacana waxa waaye jiifka. marka widthkeena marka waxaa rabnaa inaan soo yareysano oo widthka waxaa siinay 100 bx oo kaleeto aan widthka siinay. so hadda elementigiina wuu soo yaraaday, ballaciisa wuxuu la ekaaday 100 bx. marka haddaa waxay sii yar weyneysano 200 ka dhigan, 200 bx intaanu la egyahay. marka waxaa sameynaynaa 300 ka dhiganaynaa baxalatul boxkeena intuu la ekaanayo hadda intaanu la egyahay. haddaa rabno hadda inaan dhirir u yeelno waxaa isticmaalaynaa height, asigana waxaa kaloo siinaynaa 300 so iskula ekaado dhirirka iyo ballac 300 siinay. hadda wuu soo dheeraaday dhirirkiisa, heightkiisa intaanu la ekaado. marka baadhin toobka hadda wuxuu kasoo durgay baadhin toobkii aa qoranay 40 oo kale kasoo durgay. hadda rabno ilaa dhexda inaan keenno waxaa dhahnaa hadda 100 oo kale kor kasoo durg, xogaa wuu soo yara sikaday. marka baadhinka markasta baadhin ku darno macnaha dhexdiisana wuu isbalaarinaya. marka hadda waxaa qaadanaynaa wax la yiraahdo margin. waxaa dhahnay waxa waaye dhahnay dhexdan isma bedelayso ma weynaanayso, laakiinse marginka waxa waaye banaanka spaceka banaanka ah inta uu kasoo sikanayo. so marginkana sida aan sheegnay wuxuu leeyahay top, bottom, right iyo left sida baadhin. haddaanay sheegin top iyo left iyo wuxuu yahay haddaanay sheegin waa isla markii 40 bx oo kale asiyo wuxuu sameynayaa 4 jihaba 40 bx oo siinaya oo kor iyo hoos iyo bidix iyo midigba 40 oo siinaya. marka intoodaba hadda fiiri bidixna wuxuu kasoo sikada 40, korna wuxuu kasoo sikada 40, hoosna wuxuu kasoo durgay 40. dhanka midigna by automatic waayaba oo maxaa la yiraahdaa widthkeena marka hore wuxuu la ekay 300 la ekay. hadda haddaan width aanan siinin widthkeena automatic element kasto wuxuu la egyahay 100% derbigu la egyahay. marka hadda inta 40 oo kasoo sikaday marka hadda margin 40 marka dhahnay
inta 40 kusoo sokado, qaybta korena 40 kusoo sokado, qaybta hoosena 40 kusoo sokado, qaybta midigna wuxuu kusoo sokado 40. sawirka marka hadda ku noqono content waxa waa hadda qoraalka ama iskala elementigaas gudihiisa, ama sawirkan waxaa laga yaabaa inaad xoogaa ku wada wareerto, laakiinse aragti guud inaad ka haysato afiican. marka border uu leeyahay oo ah derbiga ku dahaaran ama boxkaas wax ku wareegsan. margin aa dhahna waxa waaye boxkaas banaankiisa waaya dhahna marginka, halka boxka gudihiisana ay baadhin tahay. boxka gudihiisa spaceka u dhexeeya qoraalka iyo borderka waxa waaya dhahna baadhin. sida hadda boxkeena hadda waa kana, boxkan hadda waxa waaye hajuwanki laba bes. hajuwankan hadda aa ujeedid wuxuu leeyahay box model noo leeyahay. markii CSS-ka la yimaado oo browserka laga soo bandhigayo box model noo leeyahay dhahan, oo element kasta waxaa ku wareegsana dhahan waxa la yiraahdo border uu leeyahay ama xuduud intuu la eg yahay. soo hadda iska wada tirno intaan iska wada tirno waa safe dhahno elementigiina hadda waa kana isagoo sidiisa waa. marka hadda everything way qarsan yihiin, sidaan everything way qarsan yihiin. marka sida ugu fudud waxaa sameynaynaa waxaa siinaynaa background warida. casharkan waa si fiican meel walba oo dul istaagayaan si aan u fahanno insha allah ridaasiina. marka waxaa dhahnay waxa la yiraahdo widths aa jirto aan soo yareysan karo widthskiisa 300 px siiyey oo intaas la ekaa waa dhahnay intaan wada la egyahay. so marka waxaa dhahnay color ka bedeli karnaa oo colorkiisa waxaa ka dhigi karnaa cadaan white. da colorki farta colorkeeda waxay noqotay cadaan ay noqotay. background-iga waxaa loo isticmaalaa qaybta dambe waa background-iga. colorkan waxa waaye fartaas colorka ay qaadanayso. widthskana waxa waaye balaca intuu la ekaanayo balaciisa 300 la ekaa waa dhahnay. marka borderka hadda wuu qarsan yahay dhahnay oo waa soo saaranay borderkeen 1 px siina. waxaa dhahnay solidkiisana waxaa ka dhigtaa dhahnay green. hadda lama arkaayo oo qaliir waa greenka. marka si aan u aragno borderkeen waxaa ka dhiganaa butac 5 px oo kale ka dhigana si aan u aragno. hadda marka u jeednaa borderkeena marka waxaa sameynaynaa si aan u yaro qurxino. haddii aad rabtid farta inaad dhexda keentid oo farta qoraalka uu dhexda yimaado oo si isla eg uu bidix iyo midigba space isla eg ugu xigsanaado, waxaad isticmaali kartaa waxa la yiraahdo text align oo ah farta meeleynta farta ah oo center ka dhiganaysaa. farta waxaa leedahay farta dhexda iyo keen. farta hadda ujeedaa waxay noo dhimaatay dhexdeeda noo dhimaatay. marka hadda waxaa rabnaa spaceka gudaha inaad kor inuu wax yar kasoo durgo hoosna wax yar ka durgo. marka waxaa sameynayna wax la yiraahdo padding. waxa dhan padding waxaa loo isticmaalaa spaceka gudaha ah. so marka padding ka rabnaa dhahnay padding top qaybta kore paddingkeeda 10 px kasoo sika dhahnay. hadda kor wuxuu kasoo durgay 10 px. marka qaybta hoosena waxaa isticmaalnaa dhahnay padding bottom iyadana waxaa siinay 10 px aan siinay waana soo xiranay. marka hadda kor wuxuu kasoo surkaday 10 px hoosna wuxuu kasoo durgay hoosna wuxuu iska sikiyey 10 px oo iska sikiyey. marka hadda elementigeenu wuu qurxan yahay. waxaa aragnaa inuu border leeyahay. borderkiisa waa kaas cagaar waaye. waxaa dhahnay padding inuu leeyahay waa spaceka gudaha ah. waxaa dhahnay inuu margin leeyahay oo spaceka banaanka ah. marka waxaa sameynaynaa hadda marginkeena. so waxaa dhahnay margin top qaybta kore marginkeena kore waxaa dhahnay isagana 10 kasoo durug. marka hadda markaa fiiriso elementigeena margin topka 10 kasoo durga. hadda rabno inuu margin leftiga uu ama kale derbigan margin leftiga qaybtan bidix waaye inaa ka sikino oo xogaa yar uu ka durgo. waxaa dhigi karnaa margin lefti waa dhahnay 100 ka durg qaybtan bidix. hadda elementigeena qaybtiisa maxaa lahayd tulub bidix wuxuu kasoo durgay 100. marka cashirkeena intaanu ku ogyahay waxaa macquul cashirkeenu kugu jira adkaado. marka inaa ku celcelisida fiican oo mid walbaba aragtid macnaha meesha ay saameynayso waa padding isticmaashid oo aad colorka isticmaashid. hadda elementigeena hadda oo header 1 ka ah waa kana html-ka maxaa lahayd gudihiisa. markii CSS-ka imaanana elementigeena waa soo qabanay oo tagga magaciisa sheegaynaa. tagga markaa qabana background-ga ka bedelna oo background-giisa gudaha ka dhigna. widthskan waxaa dhahnay waxa waaye balaca waaye dhahnay
elementigaas balaciisa intuu la ekaanayo 300 px kan waxaa dhahnay waxa unit wax lagu cabiro waaye kalarkiisa wayda ka dhiganay oo kalarka farta kalarkeeda waxay noqotay cadaan border u sameynay borderka waxaa dhahnay by default waa qarsan yahay borderkeena waa soo bandhiganay 5 px siinay solidkana waxa waaye kalarka uu qaadan doono green ka dhiganay oo hadda borderkeena green waaye text lignigan waxaa loo isticmaalaa inay farta dhexda keento oo hadda marka iska tirno text ligniga farteena waxay ka bilaabanaysaa derbiga marka hadda safe dhahno farteena waxay ka bilaabatay borderka derbigiisa kasoo bilaabatay markaan rabno xoogaa inay noo qurxanaato oo farta ay kasoo bilaabato dhexda waxaa isticmaalanaa dhahnay text ligni oo center ah keenay dhexda imaanaysaa farta marka baadhin toobkana waxaa dhahnay waa spaceka gudaha qaybtiisa kore oo 10 kasoo durginay baadhin bottomkana waxaa dhahnay spaceka gudaha qaybtiisa hoose waaye oo 10 iska durginay margin laftigana waxaa loo isticmaalaa dhahnay spaceka banaanka oo qaybteeda bidixna 100 kasoo sikan marka waxaan rajeynayaa casharka inaa fahanteen insha Allah waa inuu casharka xigo wassalaamu calaykum